السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay waa barnaamijkeeni habeenimo. waa habeenimo axada oo isniin ay soo galayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 25 May sanadka 2025. qodobada barnaamijka caawaan idinku soo gudbin doono waxa kamid ah dagaalkii ka socday Gaza xaaladiisu wararkii ka soo kordhay waan idin hayaa. sheeko la yaab leh ayaa socota oo la leeyahay dhowr kun oo qof oo 32 dawladood ka socda ayaa doonaya inay xoog ku galaan Gaza. iyaga iyo Israa'iil maxaa kala qabsan doona barnaamijka idinku haya. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona nin la sheegay inuu doonayay inuu bam ku weeraro safaaradda Mareykanka magaalada Tel Aviv oo la qabtay. haddaba qodobadaas iyo warar kale oo soo kordha wixii warbixinaa barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa inta aan ku jirno. wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeenimo. waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaza. haddaba wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wariyaashiisu ay ka soo tibinayaan Gaza waxay sheegayaan in weeraradii cuslaa Israa'iil ay la noqotay kadib markii dhowr gaadmo weerar ah lagu sameeyay askar fara badanna laga dilay kuwa kalena laga dhaawacay oo dagaallo aad u culus ay dhaceen ayaa la sheegay in meelaha qaar ay dib u gurasho ka sameeyeen. inkastoo aan la ogeyn inay weerarka soo celin doonaan saacadaha soo socda iyo in kale, laakiin hadda waxaa la sheegayaa inay dib u bilaabeen duqaymihii ay dadka rayidka iyo goobaha kale ku sameynayeen. haddaba dagaalkan la yaabka leh nimankan hubka fudud haysta ee soo jebinaya markasta guutooyin tiro badan oo ciidanka Israa'iil oo dabaabaad wata oo noocyo kala duwan wata oo tababar wata oo hub casriya wata ayaa waxay la yaab ku noqotaa la leeyahay habkii difaaca militariga adduunka oo dhan yaaban. saraakiishii militariga yaab ayaa ka soo haray sida Israa'iil nagto looga saaray. haddaba Ilyas Al-Hanna generaalka la yiraahdo oo Al Jazeera u waramayay ayaa faahfaahin la yaab leh arrinka ka bixiyay. haddaba warbixin laga qoray generaalkan waxaa la leeyahay Hanna ninka la leeyahay ama Ilyas Al-Hanna wuxuu sheegay in arrintani ay tahay waddo dagaal oo markaa ka duwan wixii taariikhda dagaalada militariga soo maray. wax la yaab la ayaa ka socda uu leeyahay meesha. haddaba ciidanka gumaystaha wuxuu yiri oo markaa adeegsanaya hub noocyadiisa kala duwan ayaa waxba ka tari waayay. waxay bilaabeen inay isticmaalaan hubkii kontameeyadii iyo sagaashameeyadii qarnigii la soo dhaafay kadib markii la sheegay hubkii ay weerarka ku qaadayeen badankiisa inuu noqday mid aan qarxin sida generaalku uu sheegayo oo uu leeyahay xogo fara badan oo arrinka laga keenay ayaa muujinaya. haddaba waxaa la sheegay hubkaa inay dib u samaysteen nimankan muqaawamada ah oo hubkii iyaga ay haysteen Israa'iil oo aan qarxin hadda uu yahay midka ugu xooga badan ee markaa lagu garaacayo ciidanka Israa'iil. generaalka wuxuu leeyahay waxa kan militariga adduunku taariikhdiisa dagaalada wax soo maray ma hubkaagii oo aariday oo aan waxba tarin nin aad go'doomisay oo meel hub uga imaanaya aanay jirin in hubkii uu inta soo farsamaysto miinooyin laga dhigo gantaalo laga dhigo adiga nagta lagaaga saaro. adaaba lagu sugaa hubkii alla imaanee waa la farsamaysanaa kaagiya difaac inta lagugu galo ayaa nagta lagaaga saaraa. taariikhda adduunka meelay ka dhacday ma jirto le. waxa kan waa wax la yaab loo leeyahay wax xag rabbi ka socda ayaa meesha ku jiruu leeyahay. awoodii bini'aadamka iyo caqliyadii militariga intii ahayd way dhaaftuu leeyahay. sheeko markaa aad cajiib u ah ayuu ka sheegay arrinkaas. waayahay qodobka iyo dagaalada wixii soo kordha waa wadi doonaa maalmaha soo socda iyo waa la socon doonaa xaaladda. laakiin hadda caawa waxaa leeyahay weeraradii iyo fakfaktii badnaa way joojiyeen. marka haddaba aan aragno wixii soo kordha. haddaba waxaynu u gudbaynaa warbixin aad cajiib u ah. adduunyada dhowr kun oo qof isu diyaarinaysaa lagu leeyahay inay galaan Gaza inay galaan. ilaa hadda dadka isdiiwaan geliyay waxay kor u dhaafayaan 10,000 oo qof. waxayna ka kala soo jeedaan 32 dawladood. badankood waa reer galbeed, carab
eeshiyaan afrikaan kulli isugu jiraan dadkan dhammaantood waxa ay ka xun yihiin go'doominta xasuuqa dhibaatada lagu hayo reer Gaza waxay leeyihiin marka xoogan ku jiiraynaa dadkaas haddaba marka hore aan idin tuso kadibna waxa laga falanqeeyay haddaan idin la wadaago haddaba marka waxa leeyahay isbahaysi ka kooban 32 dawladood dadkiisa ayaa qorsheynaya inay galaan Gaza iyagoo socod ku galaya lugahoodii ku galaya lugahooda ayay doonayaan inay ku galaan dadkan waa dadkii mudaaharaadyada isu soo baxyada caalamka dhan ka dhigay waay markay arkeen dawlado u dhaqaaqaya inaanay jirin oo dawladihii dhan war ka soo haray ayaa waxay leeyihiin anaguna waa dadkaas la dhimanaynaa dhowr kun oo qof ah isballansaday marka su'aasha meesha imaanaysa waxay tahay warbixinta way dheer tahay oo aan ka soo gaabiyo waxay leeyihiin xagee laga galaa Gaza marka waa inaa soo martaa Urdun ama inaa soo martaa dhankan Masar inaa ka soo gasho ama badda inaa ka timaado marka ayagu socodaan ku galaynaa dheen horta bad ma ka soo galayaan xagee ka imaanayaan marka hadda waxa leeyahay waxay go'aansadeen inay ka soo galaan macbar Rafah dhinaca Masar inay ka soo galaan safaaradda Masaarida ay ku leedahay intaasoo dawladood ayaa qaarkood dadku waxay weydiisteen fiisooyin waxaana dadka qabanqaabada wada ay leeyihiin Masar waxaan weydiisanay arinkaas waana noo ogolaanaysaa ilaa hadda laakiin ogolaansho rasmi ah laga hayo ayaga laakiin qorshahoodu wuxuu yahay ilaa bisha soo socota ee June 15keeda inay galaan Gaza waxay yiraahdeen bahashu waa step ama tallaabo marka hore waxaan isku aruursanaynaa Masar aan wada tagaynaa kadibna dadku isku luqad ma aha isku wadan ma aha qolo walba wadamadeeda iyo waxeeda isku guruuba ka dhigaynaa dadka guruub waa soo baxaynaa waxaan degaynaa macbar Rafah talaabta koowaad waxaan codsanaynaa raashinka iyo baabuurta meesha taala in la sii daayo oo la gudbiyo haddiina la ka diido waa jiiraynaa Israa'iil hana layso waa jiiraynaa waa gelaynaa gudaha dadkaas dhimanayaan qayb ka noqonaynaa adduunkii indhuhu ka qabsaday dadkii oo dhan way ka aamusan yihiin dawlad kasta waa hadlaysaa waa ka xunnahay waxa Israa'iil sama marka waxay yiraahdeen annagu dadkaabaan la mid noqonaynaa shuruudaha aan rabno in la sameeyo waa in dadka xayiraada laga qaado xasuuqa laga joojiyo dagaalka laga joojiyo waxaasaan doonaynaa ilayhi haddaba marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin arrintaas waa arrin wanaagsan laakiin Masar ma ogolaanaysaa ilaa hadda ogolaansho lagama hayo laakiin iyagu rajo wanaagsan ay noo muujiyeen leeyihiin Masaarida inay markaa noo ogolaanayaan laakiin ogolaanshiyaha lagama hayo Israa'iil cadaadis badan ay saari doontaa Masar Mareykanka la kaashan doontaa waa isugu wada tagi doonaan waxaan Georgia la dhihi doonaa ma ogolaan doonaan marka waxay yiraahdeen Carabtii haday iyagu diideen inay u gurmadaan annaga oo adduunkii ka socona galayna meesha ee wadankiina dhex marayna idinku ha taganin hadaa rabtaan marka sheekadaasuna way taagan tahay wixii ka soo kordha oo marka ay warbaahintu ka tiraahdo waanu la socon doonaa xaalkaas sida uu noqdo waayahay qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa qodob kale oo waxa jira war degdeg ah oo hadda soo baxay oo tafaasiil badan aan laga hayn haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku waxay sheegtay goor dhaweyd in la qabtay nin Mareykan ah oo lagu tuhumayo inuu isku dayay inuu bam ku tuuro waliba bamka gubanaya ah safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Tel Aviv tafaasiishii waa iska soo dabadhici doontaa kulli intaan hadda intaas warku maraya laakiin warar faahfaahsan iman doona ninkii kuma guuleysan bamkii ma tuurin sida la leeyahay waa la qabtay laakiin nin Mareykan inuu yahay la leeyahay Mareykanka safaaradda bamka ku tuuraya oo Tel Aviv jooga taasa iyaduna news ka soo jiidatay qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa madaxweynaha Turkiga Erdogan oo maanta